بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين. ودرسيني بقول إيا تضبعتناد كتابك منهج الطلاب لشيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه. وحين كوجد شرني بابك أما كتابك الجناية، كتاب الجناية ين كوجد شرني وحين كبلا بين قولك ومصنف كليه رحمة الله عليه. فصل: وجد من اثنين معا فعلان مزهقان كحز وقد وكقطع عضوين فقاتلان، أو مرتبا فالأول إن أنهاه إلى حركة مذبوح بأن لم يبق إبصار ونطق وحركة اختيار، ويعزر الثاني. وحين درسيني هوري كسو كلا غراناي فرقiga u dhaxeeya camdiga iyo shibhul camdiga iyo khata. tusaalayaalna sheekhu ka soo bixiyay. waxa kale oo inoo sheegay mubaasharo iyo sababa in qisaasku ku waajibi karo haddii ay kulmaanna ay badan tahay in mubaasharada la xoojiyo oo iyada qisaastii iyo damaankiiba oo ku xidhnaado. halkan sheekhu fasalkan wuxuu kaga warramayaa haddii laba iyo wax ka badani ay hal qof isugu tagaan sida uu xukunku noqonayo. wuxuu yidhi wujida la wujid haddii la helo min ithnayni laba qof iyo wax ka badan haddii laga helo macan isku hal mar ficlaani laba ficil oo mushiqaani naf bixiyayaala ka xazin sida qoorgoyn waqadin iyo jirkiyo maaragtay kala jarid jirka la kala jaro wa ka qatci cudwayni iyo sida inay laba xubnood gooyaan oo kale faqaatilaani labadaasiba laba markaa wax dilay iyay noqonayaan. wuxuu leeyahay musanifku markii laba qof fal laga helo falka ay geysteenna mid walba falka uu geystay uu yahay mid markaa qudha bixiyo oo qofka dila, isku hal marna ay ku dhigeen, labadaa nin qaatileyn bay noqonayaan. laba ninoo labaduba qaatiliin ah oo wax dilay iyay noqonayaanoo xukunkii aynu soo sheegnay ee qaatilku lahaa hadduu camdi yahay oo qisaastiiya iyay yeelanayaan. ficilkaasi ama mushiq ha noqdo. mushiqu waa falka markiiba qofka nafta ka gooye, qofka markiiba nafta filka maaragtay nabarka ama dhaawaca ka gooya, sida in qoortii la gooyo oo kale, ayaa noqonaya ficil mushiq ah yushiqu ruux. ama yaanay labada ficilba mushiq noqonine labada mid waliba waa dhaawac wax dili kara, sida in mid waliba uu xubin gooyo, kana xubin buu gooyey kana xubin buu gooyey isku hal mar. labadaasba laba qaatil baa loola dhaqmaya. wujida la wujida haddii laga helo min ithnayni min shakhsayni weeyi fa akthara weeyi macan isku hal mar ficlaani laba fal oo mushiqaani nafta bixiya oon sugsuginba ka xazin sida qoorgoyn waqadin iyo kala jarid. qadigu sidiisa waa in shayga laba isleeg loo kala jeexo, marka waa kala jeexid weey.
laakiin hadda imika waxa looga jeedaa dhexdaba ka kala gooyay qofkii ayuu midna laba u kala jaray midna qoortu ka gooyay isku hal mar baana arintaasi dhacday labaduba qaatiliin bay noqonayaan wa ka qad'i udwayni hadii labada ficil ba aanay muzhiq ahayn mid waliba uu dhaawac u yahay ka qad'i udwayni sida in mid maartay laba xubnood la jaro midba xubin uu jaro dadana uu dhaawaci u dhinto faqaatilaan labadaasiba laba ninka dilay iyay noqonayaan aw murattaban wa in wujida hadii la helo min ithnayn laba hadii laga helo ficlaani ba laga helay murattaban si marka tartiib leh xaal marka waxa meesha ka dhacay oo kala dambeeyay oo laba falo kala dambeeyay ay ahaayeen fal awwal fal qaatilu al awwal kan ninka dilay waa ka hore in anhaahu haduu gaarsiiyay ila harakati madbuuhin dhaqdhaqaaqi neefka la gowracay oo kale ama rafashadii waxa gowracan oo kale haduu gaarsiiyay oo say taas lagu ogaanaya bi allam yabqa waa markii uu gaarsiiyo heer aanay qofkani ku hadhaynin ibsaaru arag wa nutqu hadal wa harakatu iyo dhaqdhaqaaq saddexdaaba ikhtiyaarin u idaafe اختيار أرق اختيار iyo hadal ikhtiyaara iyo dhaqdhaqaaq ikhtiyaari hadii aanay qofka ku harin markaas la oranayo harakatu madbuux buu gaari marka hadii kii hore halka uu gaarsiiyay kii horeba laba u kala gooyay oo ficilkii musiiqa ahaa laga helay isagoo de rafanayo naftii ka sii baxayso iyo kii kalena gacan gooyay ka hore uun baa qaatila ee musiiqa sameeyay ويعذر الثاني كان ضمبه ميدك wax ka gooyayna isagana waa la idbinayaayo waa la ciqaabaya isaga laftiisa laakiin qaatil ma ah marka hadii labadii ficil ay kala dambeeyaan oo mid uu ku horeeyo midna uu falkiisu dambeeyo kii hore inuu eegi ma muzhiq baayo de qofkani rafashadii wuxuu ku jiray neefka la gowracayba uu ku jirayay oo kale neefkii la gowracay qoorta ka goyso uu rafanaya nololina ka suuragal ma ah haday qaabkaas oo kala tahay uu halka kii hore gaarsiiyay ninkii oo rafanaya uu kana wax ka gooyay kan dambe edbin baa u taalo wala ciqaabi laakiin qaatil ma ah kii hore qaatil aw murattaban hadii la helo labadii fal iyagoo marka kala dambeeya fal awwal fal qaatilu al awwal kaninka dilay waa ka hore in anhaahu haduu gaarsiiyay ila harakati madbuuhin rafashadii neefka la gowracay bi allam yabqa wa inaanay ku harin ibsaaru wa nutqu wa harakatu ikhtiyaari arag iyo hadal iyo dhaqdhaqaaq ikhtiyaarkiisi waa inaanay ku harin oo waa laga yaabaa inuu xirribaha iyo indhaha oo waxa weeyaan celcelinayo laakiin wax ikhtiyaara ma ay waa naftii oo baxaysa ama uu qaylinaya laga yaabaa de naftii oo baxayso iyaduna ay tahay laakiin hadal isaga ikhtiyaarkiisa iyo arag ikhtiyaarkiisa iyo dhaqaaq isaga ikhtiyaarkiisa hadii aanay ku harin markaas aynu oranaynaa ka hore uu baa qaatila wa illaa hadii kan hore aanu harakatu madbuux gaarsiin ninka de dhaawac halis uu ku dhigay laakiin hadana ninkii waa hadlayay ama waxa weeye dadkii buu la hadlayay ama saani buu wax u jaleecayuu eegay ama dhaqaaqa isaga ayaa marka ikhtiyaarkiisa ku dhaqaaqay markaasuu ka dambana isaguna uu dhaawac kala geystay kiisii baynu hadaba eegi dambe fa in dhaffa hadii kan dambe uu dhamaystir ahaa kan dambe falkiisu kii hore markaa kii hore dhaawac buu geystay dhaawacaas haduu doono halis laakiin ninkii wali hadaa de waxa weeyaan ikhtiyaarkii kama tagin oo ikhtiyaarkii baa u jiray markaasuu ka dambana dhaawac ku dhigay kii dambeeynu hadana eegiyo haduu dhaawac tirid yahay uu kurkaba ka gooyay midalan ka hazin waa sida inuu kurka ka jaro qoorta ka gooyo bacda jurxin iyadoo kii hore uu dhaawacay fa huwa alqaatil kan damba qaatil noqonay taasi dhacdana oo kan dambe wixiisu uu dhaawac tiri yahay
kii horena uu dhaawaca halis bahan noqday kan dambe ayaa qaatilka noqonaya wa ala al-awwal ka horana waxa lagu leeyahay damaanu jurxihi dhaawici uu geystay wixii ka waajiba qisaas iyo magba wixii dhaawiciisa ka waajiba ayaa isagana lagu yeelanaya wa illaa haddii kan dambe aanu wixiisu dhaawac tirid ahayna isna uu dhaawac uun ahaa deetana uu labadii dhaawac dee ninku u dhinto faqaatilaani labaduba qaatil bay noqonayaan marka u fiirso laba fal baa ninkan lagu dilay labadii fal baad isweydiinaysa may kala dambeeyeen mise isku mar bay ahaayeen hadday isku mar ahaayeen waa laba qaatil hadday isku mar ahaayeen waxaad odhanaysaa waa laba qaatil hadday kala dambeeyeen waxaad eegaysaa kii hore hadduu de waxa weeye sakaraad gaadhsiiyey oo xaalad aanu qofkan ikhtiyaarba ku harin hadduu gaadhsiiyey oo kii ninkii naftu ka sii baxayso kan dambana uu falka ku dhigay ka horuun baa qaatila ka dambana dee waa dambiile ciqaab uun baa ka waajibi laakiin qaatil la odhan maayo haddii kii hore wixiisu uu dhaawac ahaa halis ba ha noqdee laakiin ninkii aanu ikhtiyaarku ka tegin kii dambaad eegi ka dambe hadduu dhaawac tirid yahay isagaa qaatilka noqonaya hortii ka gooyoo kale hadduu isaguna dhaawac uun yahayna dee labadii dhaawac buu u dhintay baa la odhanaya labadii nabar buu u dhintayoo labaduba laba qaatil iyo markaana noqonaya wuxuu yidhi aw murataban si murataba hadduu u dilay hadday u dileen ama ay labada dhaawac ugu dhigeen fal awalu kii horaa qaatila in anhaahu hadduu gaadhsiiye ilaa xarakati madbuuxin xarakadii madbuuxa bian lam yabqa waa inaanay harin ibsaaru wanutqu wa xarakatu ikhtiyaarin ikhtiyaar waa inaanu ku harin wayucazaru athaani ka dambena ciqaabun baa isagana lagu qaadi wa ilaa haddii kale fain markaa waxa kii hore aanu halkaa gaadhsiinin fain dafafa haddii kan dambe uu u dhammaystiray ka xazin waaba sida isagoo qoorta gooye bacda jurxin iyadoo ka hore uu dhaawacay fa huwa alqaatilu kan dambaa qaatilkaa wa cala alawali kii hore waxaa lagu yeelan damaanu jurxihi u fiirso haddii ka hore uu xarakatulmadbuux gaadhsiiyo kii dambena uu gacan gooyo isagoon weli haddaan naftu ka bixin dee laakiin ikhtiyaarkii ka tegey kii horaa qaatila baa lagu yidhi kan dambana waa la ciqaabi uun gacantii la odhan maayo adigana gacantaa lagu jarayaayo qisaas baa ka waajibaysa la odhan maayo maxaa yeelay waa qof meyd gacan ka gooyey buu la mid noqonaya qof meyda nin gacan ka gooyey buu noqonaya laakiin kan xaaladdu markay cagsiga tahay kii hore dhaawac buu ahaa kii dambana dhammaystir buu ahaa kan dhammaystirka ah isaga qisaastii baa dee lagu leeyahayoo waa qaatil isagoo dee naftii baa loo qisaasay kii hore xubinkii uu gooyey baa loo qabsan oo hadduu qisaas lahaana qisaastii looga goyn haddii kalena magtii laga qaado maxaa yeeley qof dhammaystiran buu isagu dhaawaca u geystay oo aan dee meyd ahayna nool wa cala alawali kii hore waxaa lagu leeyahy markan damaanu jurxihi dhaawiciisii magdhowgiisii wa ilaa haddii kan dambena aanu u dhammaystirin isna uu dhaawacay uun faqaatilaani dee ninku labadii dhaawac buu u dhintay baa la odhanayaayo labaduba laba qaatil ayay noqonayaan walow qatala hadduu dilo mariidan nin xanuunsanaya oo xarakatuhu xarakatu madbuuxin sakaraadba ku jiro oo dhaqdhaqaaqii ikhtiyaarka ahaaba ka tegey oo sidii neef la gowracay u rafanaya oo xarakadiisu xarake madbuux ay tahay hadduu midi dilo walow bidarbin yaqtuluhu wuxuu ku dilayaa dhirbaaxo iyo garaacba ha noqoto isagoo kala dile lazimahu qawadunta soo socota ku xidh qisaastii way ka waajibi waxaynu nidhi haddii ninkii la dhaawaco oo ikhtiyaarku ka tagu dee naftu ka sii baxayso kii wax u geystaa la qisaasi maayo
laakiin haddii ninku uu xanuunsanayo xanuun uu halkaa gaadhsiiyo xanuun buu la sakaraadaya ikhtiyaarkii waa ka tegi xaraka ikhtiyaar iyo arag ikhtiyaar iyo hadal ikhtiyaar toona male mid baa dilay ninkii sida ahaa ama qoor ha ka gooyo ama garaac isagoo kala dilaya marka xaaladiisa la eego baha ku dilo ama wixii uu ku noolaan lahaa ha ka fujiyo ha ka saaro qaatil buu noqonaya oo la mid noqon maayo kii la dhaawacay waayo xanuunka waxay yiraahdeen culimadu iyadoo qofka la isleeyahay way ka baxaysaa ma noolaanayo iyuunbuu haddana ay dhici kartaa inuu ka kaco marka qofkan xanuunsanaya kii dilay isagu qaatil buu noqonayaa la mid noqon maayo ninkii qoorta laga gooyay ama laba loo kala jaray ee sii rafanayay kii markaa gacanta ka gooyay oo kale noqon maayo walow qatala hadduu dilo mariidan mid xanuunsanaya oo xarakatu madbuuxin dhaqdhaqaaqa uu samaynayaa dhaqdhaqaaqii bilaa ikhtiyaarka ahaa ee neefka la gowracay oo kale uu yahay hadduu dilo walow bidarbin baha ku dilo garaac baha ku dilo yaqtuluhu isagoo kala dila yacni seef bayaanu u qaadanin hadduu doono garaac baha ku dilo haddii la yidhaha garaacaas dee ninka xaaladdaa ku jira wuu dilayaa haddii la yidhaahdo lazimahu qawadun waxaa ninkaasi ku waajibaya qisaas baa ku waajiba haddii shuruuddii dee la helo aw man ama mid buu dilay dhe walow qatala hadduu dilo man cid buu dilay caahidahu uu ogaa cabdan addoonnimo uu ku ogaayo addoon inuu yahay ogaa aw dannahu ama uu maleeyeyba cabdan addoon uu maleeyey cabdan taa labadaba u taala caahidahu aw dannahu cabdan caahidahu cabdan aw dannahu cabdan wuxuu dilay nin uu addoonnimo ku ogaa ama uu u malaynayay inuu addoon yahay iyadana fa akhlafadaasaad ku xidhi xagga dambe lazimadu fa akhlafa lazimahu qawadu fa akhlafa deetana ay caddaato siduu moodayay inaanay ahayn ninkani nin xore ahaa ay caddaato ama addoon wuu ahaaye laakiin day uu xoroobeeyey isagu baan ka warqabin lazimahu qawadu isagana qisaastii way ku waajibiyo waanu moodayey ta ninka addoonnimaan ku ogaa waa lagu qisaasayaa ismaan lahayn inaad ogaato in lagu qisaasayaa shardiba maaha baa la leeyahy inaad jinaayada geysato unbaa shardi sow jinaayadan maad geysan ninkani inuu macsuum yahay sow maad ogeyn ninkani nin dhowrsoonoo in la dilo aanay ahayn inuu yahay sow maad ogeyn waxaa la yidhahdaa aljahlu bilcuquubati laa yucdaru bih qofku inuu cuquubada ka jaahil yahay bacda alcilmi bilxurma hadduu ogaado waxaan xaaraan inuu yahay cuquubada ka ratibmaysa inuu ogaadaa shardiba maahaba marka ninkan ama addoon ha noqdo ama xor ha noqdo inaad dishaa inay xaaraan tahay waad garanaysay waad dishay dee nin bareeray baa tahay waxba la eegi maayo ciqaabta ka ratibmaysa inaad garanaysay inaanad garanayn walow qatala hadduu dilo man caahidahu mid uu ku ogaa cabdan addoon ku ogaa aw dannahu ama uu moodayey cabdan addoon uu moodayey fa akhlafa deetana siduu moodayey si aan ahayn ay soo baxdo lazimahu qawadun ninkaa qawadkii waa lagu leey aw kaafiran walow qatala hadduu dilo man caahidahu aw dannahu kaafiran labadii baad iyadana udhigaysa man caahidahu mid uu ku ogaa kaafiran gaal aw dannahu ama uu moodayeyba kaafiran gaal hayra xarbiyin laakiin gaalka uu moodayey gaal dagaal inaga dhaxeeya ma ahayne gaal macsuumuu u haystay markaasuu dilay fa akhlafa lazimahu qawadun baa iyadana u taala siduu moodayey si aan ahayn baa soo baxday qawad baa isagana lagu leeyay iyo qisaas nin buu gaal moodayey dimiya gaal yacni dhowrsoon ila gaaladu dee waxay u kala baxayaan xarbiyiin iyo hayru xarbiyiin oo kuwa ammaan loo nabad dee waxa weeyaan nabad la siinayo kuwaayna dhex joogay ee dee ammaanka ku soo galay nabad bay inagu leeyihin midna waa mid dagaal inaga dhaxeeyo markaa nin gaalahoo nin uu moodayey inuu gaal yahay ammaan leh ama uu kuba ogaa gaalnimo ammaanna lahaa ayuu dilay waxaa caddaatay intaanu dilin inuu islaamay ninkan
أما إنه يسقون موذي قال بآنو أهين كل هدور دور صونا إنه حاران يهي وادو قيدوي سو ماد موذين إن دور ماد موذين حربي صوما إن حرب موذين بمهم كل هدانا حرب موذين كي دقالكو إنه قد حيي إن أنو أهين كل هداد أقيد إسلام نمضان كو صواب بحضي قصاصتي يكو واجبينيس ونين دنبيكي وبراري بعد نقونيسا عقوبة كررتي ما يسي إن أنا أقيدنا وتسي كلام موذيسي وحبكو أنفعي ما يسو ولو قتل هدود لو من عاهده مدو كوغا أو ظنه وما موذي كافرا قال غير حربي أن حرب أهين فأخلف ديتنا سيدو موذي سيانا إن صواب حتى لزيمه وقوده أو ظنه ولو قتل هدود لو من ظنه مدو موذي قاتل أبيه كي أبيه دلي كي أبيه دلي بو موذي وقصاص تقولها مركاسو كغجري وتوكتي فأخلف أي أيضا أوتار waxa ku soo baxday markaas sidoo moodayay in aanay ahayn lazimahu qawadu isagana qawadkii iyo ku waajibay maxaa yeelay dawladda lahayd cid aabaha dishay inay ku soo qabato oo maxkamad la mariyo oo markay ijraa'aadku dhamaadaan baa la qisaasanayay kolka horeba inaad degdegtaa waa dambiyo may banaanay oo arrin xaq u leedahay may ahayn marka kol hadii aad adigu falka ku kacday ay haddana cadaatay ninka dishay ninkii aad ku lahayd qisaastaba inaanu ahayn waa lagu qisaasay adiga kii aabaha dilina waa la qisaasay adiga waa lagu qisaasay ولو قتل هدود دل من ظنه مدو موذي قاتل أبيه بموذي كي أبيه دلي فأخلف لزمه قوله أو حربيا ولو قتل هدود دلو من ظنه حربيا مركة عاهدة دي وكم مقام عاهدة دي لما أرني مدو موذي حربي قف حرب موذي أو بدارنا لكن ودكين تشوغا قف نجي نلا تشوغا أيو إسمه حرب إسكمودي حتى قال بما هو مسلم مركاسود دلي فأخلف لزمه قوده سيدو مودي نسيانا بس أنك كان المسلمين أبوها يقود باك واجبي إذا قود إياك واجبي إيا قصاص حاجة لقف كان قولك المسلمين تجوغا أنا هورت أقول كيسا وبسطيها حدي حتى وقال ياهي تهينو معصوم أمان ليه ياهي بأي أبضانتها إنك إنلا تشوغا عدوون إني مغان جلسي إنه يمن دوتا إن شاء الله كتاب الأمان عروري هذي مغان جلسي وموضا يمغان قليل إني ساعتها اللي مدي ليه وحاولنا نقبح أمانك عرورته ما أصحينه نقبح مركز نقبح دانا مركز هذا ورينو يالا لكن يساقي يو أمانك يقفكي نبت قليه كسوا قرأي نقوم بلنبورين مايو وينو بحو هذه حتى أنا أمانك أصح أقول هذا الشيء دوات حد قدبتي marka haday cadaatayno muslimaana qisaas baa ku taal walaw qatala duu dilo man dhanna harbiyan midu harbi moodayo bidaarina inaga inala joogo wadankeena jooga fa akhlafa daatana sidoo moodaysi aan aynu soo baxday isagana lazimahu qawadkiiba waajibay aw bidaarihim haduu sedilo mid uu harbi moodayay oo dhulkii gaalada kuwii dagaalku inaga dhaxeeyay ee daarul harbigi weeyaan kuwii dagaalku inaga dhaxeeyay mid jooga ayuu toogtay intuu dhoontay ayuu soo toogtay isagoo gaaladii mid ka soo diroon islaad hayseen aw safihim ama markii dagaalkaba lagu jiray ayuu mid safkoodii ku jira uu harbiga moodayo toogtay uu dilay waxa cadaatay inuu ninkani muslim ahaa ama la soo qasbay ama ganacsi iyo waxba uu tagay halkan ma aragtay waxa weeyaan qoladan aynu ishayno oo isagu wax ka iibinayay sayd u dhacdaba ha u dhacday fahadaru wax ka soo qaad malakaasi وإنك إن جهاد كجروها جهاد شرعي إن كجرا أيوها إن كان كلام إسقى جبوت فلسفي وإنك ليس هي عدو جاءها إسقى أتجي مركا مجنا كواجب ميسو قصاصنا كواجب ميسو فصل أركان القود في النفس قتيل وقاتل وقتل الكون المصنف رحمه الله تعالى كجو الرمية أركانتي قود كأما قصاص أركان القود في النفس أركانتا قصاصته أي لا ضعي أركان حق نفط الله يا نفط قصاصتي دي لانقصاصتي نفنا وين نقطها حبنا وين نقطها مركي أي هذا قل لي أما نفتي أي تهي
qatiilun dawayn qof la dilay uu jiro wa qaatilun ku dilayna waa inuu jiro wa qatlun iyo falka laftiisii dilitaanka ahaa saddexda dhinac baa wax laga eegi weey si qisaastii loo xukumo saddex dhan baa wax laga eegi kan la dilay waa la eegi oo shuruud baa loo dhigi kan wax dilayna isagana waa la eegi oo shuruud baa laga fiirin dilitaanka laftiisa qatligu noocu u dhacayna isagana waa la eegi wa shurita fihi ma marra bukuri qatliga iyo dilka de waxa loo shardiyaa wixii aanu soo aragnay oo waa inuu yahay amdi dulmiya waa inuu yahay markaas qisaas ka waajibta dilka wa fil qatil kala dilayna waxa laga eegi isagana hal arrin baa ya loo shartiyo cismatun qof dhowrsoon uu yahay qofka la dilay hal sharti baa loo eegayaayo waa inuu yahay qof macsuuma qof dhowrsoon oo shariicadu yaan la dilin ay tiri waa inuu yahay fayuhdaru hadar baa laga dhigayo magdhawi ka waajibi maayo xarbiyun kii xarbiga ahaa dagaalku inaga dhaxeeyay gaalkii dagaalku inaga dhaxeeyay hadii la dilo magina ka waajibi mayso qisaasina ka waajibi mayso wa murtadun kii murtadka ahaa ee diintaba ka baxay hadii la dilo oo ama sidii nidaamkii shariicada u dhigtay loo dilo ama midba intuu wax weeyaan degdego isagoo dawladdiiba sugin oo qudha ka jaro waa la yar ciqaabiyo waxa la oranayaa saas sameeysan may ahayn laakiin qisaas baa waajibaysa tay noqon mayso ninkay nin dil mutaystay ayuu ahaa kazaanin muhsanin waxa abu lamid yahay oo kala oon zaani muhsana oo qatalahu muslim dilay ninkii zaaniga ahaa ee zinaystay isagoo reer hore soo maray de waa tii in dhagax lagu dilo shariicadu ay u dhigtay kii hadaba muslim uu dilo muslim haduu dilo hadar buu noqonay alka muslimka markaa waxa ku baxaya hadii gaal dilo oo gaalka waxa la leeyahay zaani muxsana ma noo ahaada isaga ka wanaagsanaa oo isaga markaa waxa weey ka yeeli mayno laakiin hadii muslim dilo markaas ayaa isagana uu iska noqonayaa markaa mid aan markaa waxba ka waajibay kazaanin muhsanin wa basida zaani muhsanahu qatalahu muslimun oo markaa muslim uu dilay markii arintiisu ay sugnaatay waman alayhi qawadun liqatilihi wa kaman alayhi qawadun waxa kale lamid yahay uu kii qisaasi ay ku waajibtay oo ugu waajibtay liqatilihi kan dilay ninkii aabaha dilay ee qisaastu ay kugu waajibtay hadii intaad u dhoomatay intii aan xaqii dawladda iyo nidaamkeediiba la marin aad disho waa lagu soo qaban kolkii markaa wixii aad sugto ninkan inay qisaas kugu waajibtay ay cadaato lagu qisaasi maayo waayo ninkan waxaad ku lahayd qisaas laakiin waa lagu ciqaabaya oo inaad degdegto sidaa samayso ma ahayna waa lagu ciqaabi laakiin meeshaasi qisaas iyo magitoona ka waajibi mayso mar haday cadaato ninkan aad qisaas ku lahayd waman alayhi qawadun wa kaman alayhi qawadun wuxuu lamid yahay uu kii markaa qawad iyo qisaas lagu lahaay liqaatilihi kan dilay oo qisaasta ku lahaa haduu ku kala ku lahaa kan dilayna uu ku kala yahay oo kii qisaasta lahaaba aanu ahayn qisaas baa isaga laftiisa ku waajib qoladii kalena magbay yeelan halkaana qatiilkii qofkii la dilayay wixii laga fiirinay weeyaan waa inuu macsuub yahay marka wad arkaysaayo يعني حتى إسلام كي لما شرطين هذه قال كي دمي هاي نقول نحن ولا قال دمي نقول نحن ودلو قال دمي نقول نحن ولا قال كلو دمي هادلي توحنا لنا نكر معصوم دشوي ودلينا وفي القاتل كم واحد دلي يسقي واحد لقى إيجي يا لبا قضب ككوبات التزام ninkani waa inuu yahay nin ahkaamteeda u hoggaansanaa iltizaamku waa hoggaansanaan ahkaamta dawladeena waa inuu ninkani hoos imanayay oo dawladeena ahkaamteeda u hoggaansanaa marka muslim oo dhami islaamkii marka dawladeena marka leenahay waa dawladii islaamka weey
muslim oo dhamide dawladii islaamka uu hoggaansan gaalkii ku hoos noolaa ee ama dimiga ahaa ama magangeliyada ku dimigu waa kii nilaba joogay ee jizyada laga qaadayay ama kii magangeliyo iyo nabadgeliyo ku soo galay sida ganacsada iyo wax la mid ah iyo kii muaahadka ah waxa soo dhami markii ay markaa inoo soo gelayaan de wax weyn xukunka islaamka hoos jooga marka ninkan qaatilkay waa inuu multazim yahay maxaa markaa baxay waxa baxay gaalkii xarbiga ah gaalkii dagaalku inaga dhaxeeyay wixii uu inaga dilo de loo qisaasi ma yadu soo islaamay loo yimaado isagoo kun inaga dilay loo qabsan maayo kunkii uu dilay maxaa yeelay kolkan wax leeynayay ninkani multazim ba mu ahayn marka waa inuu multazim yahay si ay qisaasti u waajibto waa inaanu xarbi ahayn ninka wax dilay fala qawad iyo qisaas lagu maray ala sabiyin ilmihi yara ahkaamtu aanay qaban wa majnuuninki wala ay isagana ahkaamtu aanay qabanaynin wa harbiyiinki xarbiga ahayd dagaalku inaga dhaxeeyay ee wax inaga dilay qisaas lagu maray walaw qaala hadii hadaba qofku uu yiraahdo kuntu waqtal qatl waxaan ahaa markii aan wax dilayay sabiyan ilma aan qaan gaarin baan ahaa buuli markaan dilayay ninka waa la soo xirayo waa la hayeeyo dacwadii baa la oogayo kadib buu yiri markii aan imika qaan gaar baan ahay laakiin markii aan wax dilayay qaan gaar ba maan ahayn wa amkana wuxuu sheeganayaa suuragalna way noqotay inuu arrin yaani suuragalana way tahay arrintaasi aw majnuunan buu yiri ama waxa buu yiri majnuun baan ahay waa laabo markaan ninkan dilayay isma waan kale ogaan maskaxdaydu ma joogin وعهد والنا ninkan waa lagu ogaa inuu waasho xalafa uu dhaaran deetana waxa weey ilaa imika waa nin qaangaara ama waa nin aan imika waalay laakiin wuxuu leeyahay markii falku dhacayay qaangaar maan ahayn ama waan waalaa markii falku dhacayay inuu yaraana suuragal weey waaliduna waali lagu ogaabaa jirtay oo ninkani waali waa loo ogaa marka imika waa la dhaarin ilaa imika waa nin dhameystirane waa la dhaarin in markii falku dhacayay uu sidaa ahaa hadii la dhaariyo oo marka hadii dhaartana qisaasi marka ma jirayso de magiga xagaasa loo wareey aw ama sidaa ma wala wuxuu yiri ana sabiyun maaniga qaan gaarayba ninkaygana haysataan ee hadda qisaas iyo wax sheegaysaan qaan gaarba ma ihi imikadan aan qaan gaarba ahay wa amkana weey waxaan u sheeganayaana waa suuragal fala qawada qisaasina jiri mayso la dhaarina maayo la dhaarin aduu ilaa baan qaan gaarin aanu lama dhaarinayo way hadaynu dhaarino de dhaartii hadaynu warkiisi ku qaadana sabi baynu dhaarinay baa meesha ka soo baxaysa sabina lama dhaariyo waxaan u sheeganayaana waa suuragal waynu iska daynaynaa markaa makti xaga suubaynu wareegnaa fala qawad jiri maayo marka shardigaasi waa kii koobaad waa iltizaam shardiga iltizaamka waxa ku baxay qof kasto ahkaamtu aanay qabanin ilmihi yara kii wala iyo xarbigi shardiga labaad waa mukaafaatu in isku dhignaansho uu jiro oo ninkan qaatilka uu u dhigmo ninkuu dilay qaatilku waa inuu u dhigmo ninka uu dilay qofku uu dilay marka yaa loo qisaas mukaafaada goormaynu eegaynaa xaala jinaayati marka nimanka qisaasta sameeyayna ma markii dambiyeed ku dhacay markuu ninka dilayay waa inuu u dhigmayay haddaanu markaa u dhigmayna laakiin de waxa weeyaan marka dambe ay isu dhigmeen qawadkii marka waxa weeyaan iman mayso marka qisaasta iman mayso markii falku dhacayay waa in labada mukaafa'a ka dhaxaysay fala yuqtalu loo dili maayo muslimkii bikaafirin gaal loo dili maayo marka mukaafaadii imisa qodob baynu ka eegaynaa kow islaamnimadii baynu ka eegaynaa haddii maqtuulku uu gaal yahay qaatilkuna muslim yahay mukaafa'a halkaa ma taalo nabigeena alayhi salatu wasalaam yiri la yuqtalu muslimun bikaafir muslim gaal looma dilo
ويقتل marka iyada markaynu xaalad jinaay iyada lafteeda xaalad jinaayahaynu eegayna iyadoo ay labaduba laba gaal yihiin buu dilay laba dimi iyadoo yihiin iyuu dilay kolkii la soo qabtayna wuu islaamay oo muslim baabu noqdayba madilayna oo mudilayna waxaynu eegaynaa mukaafaatun xaala jinaayati markii fal dambiyeed ku dhacayay mukaafaadi ma jirtay mise ma jirin baynu oranayna ee markan la qisaasay eegi mayno markuu ninka dilayay da isku xukun bay ahaayeen waa islahaayeen fala yuqtalu muslimun muslim loo dili maayo bikaafirin gaal uu isagoo muslina uu dilay wayuqtalu waa la dili duu amaanin kii amaanka lahaa bimuslimin hadduu muslim dilo gaalkii amaanka lahaa hadduu muslim dilo waa loo dilaya wabidii amaanin gaal kaloo amaan la hadduu dilana waa loo dilaya oo gaalkii hadduu gaal dilo oo labadiiba laba amaan la ay yihiin waa laysu dilaya muslim hadduu dilana waa loo dilaya wa in ikhtalafaa diinan haba kala diin ahaadaan yahuudi iyo kristaan nagu dhex nool oo labaduba amaan leh iyo midkii kala dilay waa inuu qisaasayno aw aslama alqaatil ay wa in aslama alqaatil laba dimi baa isdilay kolkaasuu kii dilay soo islaamay si aan loo qisaasin ama dee ilaahay baa soo harooriyeyba qisaastii waa halkeedii maxaa yeelay waxaynu eegaynaa kolkii dilku dhacayay ninku ninka dilayay dee isku gaalay ahaayeen walow qabla mawti ljariixi waa ka sii fogeeyeyo xataa wuu yidhi markuu islaamaya hadday doonto ha noqoto kii uu dhaawacay intaan u dhiman ninkii uu dhaawacii ku dhigay ayuu soo islaamay kiina dhaawiciibuu u dhintay waa loo qisaasaya maxaa yeelay faldambiyeedka markan uu geystay dee isku way isu dhigmayeen ninku wuxuu u dhintayna waa falkii uu markaa waa la qisaasay laakiin yaa dilaya wayaqtasu waxaa maaragtay qisaasi fii haadihi masaladu waatii waa marka uu islaamay kii wax dilay imaamun dowladda ayuunbaa ninkaa dili bialabi waarithin marka kii dhaxalka lahaa ee dee gaalka ahaa uu dalbo codsado ninka la dilay waa nin gaala dhaxalkiisii yaa yeelanaya dee gaaladiisii baa yeelanaysa qisaastana sida inoo iman doonta dadka dhaxal kale yaa xaq u leh oo macnaheedu uu yahay iyagaaba ninka dilayaba inta loo dhiibo dawladda dilaysa ma dawladda hadda iyagu wakiishan bay dilaysaa haddii kale inta loo dhiibaa la oranayaa ka goosta iyagaa dilaya markaa haddaba ninkan soo islaamay kii la dilay dadka dhaxalkiisa lehi waa gaalo ninkan muslimka ah gaaladii u dhiibi mayno oran mayno qabsada waa kan idinku dila ee dawladda dilaysa oo imaamka qisaastii ka goynaya markay iyagu codsadaan wayaqtasu fi hadhihi masaladani ninkan qisaastii waxa ka goynaya imaamkii iyo dawladii bi talabi waarithin marka uu codsado dhaxal sugihii ama dhaxal maanta kii dhaxalihii gaalku ويقتل والدلي مرتد كي مرتد كأها بغير حربي وحن حربي أين دودلو مرتد كادو مسلم دلو دو كل كي صورة دل بوها يصبي يرددي سين لو دلي أهل إيه كان قصاص تينا والله راعينا يا قصاصنا ولا دلي أو قصاص أها يا لو دل خدي ودلو دمي قال بو دلي أمان له يسقونه هو مرتد ولا دلي bal waxa weey murtadkii haduu murtad kala dilo isagoo murtada ayuu murtad kala dilay isagana waa loo diliyo waxa la leeyahay adigu ma dhaamin dadka murtadka anaga dilaynay adigu murtad baa tahay murtad dilay hatta haduu marka waxa weeyaan soo islaamo waxaan leenahay markii aad dilaysay soo murtad ma ahayn qisaas ahaan baa marka loo dilay wuxuu yiri
ولا حر بغيره ويقتل مرتد بغير حربي بحيان حربي أهين ونبا مرتد ولو دلا ولا حر بغيره هل كي هركو عضف فلا يقتل مسلم بكافر مسلم قال له مدي مركي بسويري ولا حر بغيره وصفة لبعض مكافأة اللي يجي كو إسلام نمدا اللي يجي لبا حرية دي حر نمدي كي حرت أها قف أن حر أهل لو دل مايو وهدو أدون دلو إنكي حرت أها لدل مايو صحابة بضن بي مركا كسو أرورت آيات القرآن كأهنا العبد بالعبد الحر بالحر والعبد بالعبد يدنا والله قبصا والأنثى بالأنثى يدنا الله ما قبصنين إن آن قبردي نيك اللود دلين يدوا اللود دليا ونشيك دون حديث بكسو أرورت ولا حر بغيره marka kii xorta ahaa haduu adoon dilo loo dili maayo hadii laakiin adoonkii uu xortii dilo in xora haduu dilo di waa la dilayaa isaga la wanaga in mukaafaad xaqan qaatilka laga eegay kan un baan oranayna miyuu u dhigmay haduu u dhigmayo ama uu kaba haduu u dhigmayo ama uu ka liito di waa la dilayaa laakiin haduu ka sareeyo qaatilku haduu ka sareeyo yuu baan la dilay wala mubacadun kii markaa mubacadka ahaa ee barxorka ahaa isagana loo dili maayo bimithlihi mid kale oo barxor ah mid barkii xor yahay yaa wuxuu dilay mid barkii xor yahay looma dilayaan oo maxaa dhacay waxay yiraahdeen day waxa weeyaan adoonnimadu jirkoo dhan bay ku baahsan tahay xornimadan lafteeduna way ku baahsan tahay oo marka lama oranayo nuskiisa saaxor hay nuskiisa ku beega iyo intiisa ku beega lama oranayo baa waxaan waa wax shaa'ic ku ah shubhad bay marka noqonaysa shubhad difaacada qisaastii bay noqonaysa marka kii mubacadka ah ee qayb xornimihii ay ku jirtay haduu dilo mid kale oo qayb xornimihii xataa ay ku jirto la dili maayo wa in faaqa hurriyatan biirad haday haduu doono maartay wax weeyaan kan la dilay haba ka xornimo badnaado oo kaana saddex meelood oo laba meelood ba xor ahaa la dilay meelun ba adoonahay kana laba meelood oo meel ayaa xor ah meelna waa adoon hadana loo dili maayo la yiro xornimada jirka ku wada baahsan ayaa shubhan noqonaysa wixiina xubin la isugu beegayo lama oranayo xubinka ayasa waxa weeyaan xubinka xortayna xubinka xortu ku beegan yahay meeshii ma taalo waa xornimo baahsan iyo adoonnimo baahsan marka waa shubha noqoto lama dilayaan ويقتل ولا دلي رقيق أضانكي يسقو صافي هاي عن حرنمو كسي فايسنين بالرقيق مد عن ما ارتحوه يسقونا عن حرنمو كتشري هدي ودلو لبا أدون هدي استلان والله يسوق قصاصية وإن عتق القاتل هبا حروبو كي واحد دلي مركو نبكا كيستي halkii hore iyada lafteeduna ay ku taalaay waa maxay mukaafadaynu waxaynu ka eegaynay xaalal jinaaya marka waa xaalul jinaayihi been walaada taagan dib uu ka soo xoroobay oo loo dilay la mukatabun adoonkii mukatabka la dili maayo bi raqiiqihi adoon isagu leeyahay haduu dilo mukatabki hadii uu dilo adoon isagu leeyahay isagii baa shaqaysanaya mukatabki iyo adooma yeelanayo oo xoolo dhaqanayo oo hadaba adoon isagii leeyahay hadii uu dilo shubhatul milki baa jirta ninkani yaani lahaansha meeshii jira marka wixii isagu uu lahaa dee loo dili maayo oo cid ka xigta oo qabsanayso hanoo disha tiraahda yaaban meeshii aan jirin marka loo dili maayo adoonkii mukaatabka ahaa hadii uu dilo adoonkiisi hadii laakiin adoon kale uu dilo adoon kale haduu dilo dee waa loo dilaya naam duu mukaatab kale dilo oo kale waa loo dilaya walaa qawad ma dhaxeeyo ma dhaxyaalo bayna raqiiqin muslimin wa hurrin kaafirin adoon muslima iyo gaal xora qawad uma dhaxeeyo baa leeyahay haddii adoonkii muslimka uu gaalkii dimiga ahaa dilo
addoonkii la dili maayo oo de waa muslim kana waa gaal muslim gaal looma dilo haddii gaalkii uu addoonkii muslimka ahaa dilana loo dili maayo oo de kani waa xor kana waa addoon xorna addoon looma dilo marka mid waliba sifad difaacaysa qisaastii ayuu ku sifaysanyo labada qisaasi kama dhaxaysan ويقتل بأصله لا بفرعه ويقتل قفكي ولو دلي بأصله أصل كيسي ولو دلي لا بفرعه فرعي سلو دلي ما يوا صفة صدحاضه الأصالة أصل نمو أيين مكافأة إذن كي هذه اللبادي مذي أصل ويهي بك كلا فكرنا وفرعيه أصل نمو باسا قصاصتي ما شك صار يصو لدل مايو ولا والد بولده ولدك ما رأيت وحوين ولدك سلوم الدلو والدك ولدك سلوم الدلو إذا أنا مركا حديث صاص وكسقنا هذا السبب هو هذا الوجود كيس تشريتان كيس مركا يسوي السبب نقول معايو دليتان كيس لكن هذه فرعي وأصل كيب دلو ولا الدلية وهو يقتل ولا الدلي فرع بال الدلي بأصله أصل كيس يدلي فرع بينها قدري يعني فرعي ولا الدلي هذو أصل كيب دلو لا بفرعي لا يقتل أصل كي الدلي مايو بفرعي فرعي سادو دلو أبيه إن كيس لو دلي مايو هو يدي إن كيد لو دلي مايو أوجي إن كي أوجه هل لو دلي مايو أي يدي كي أي يدي واحد لو دلي مايو ولا له ويل hadduu isaga dila loo dili maayo isaga dartiina loo dili maayo isaga dartii maxay tahay hadiiba aabuhu hooyadii dilo aabuhu hadduu hooyadii dilo ama hooyadu aabihii disho caruurtiibaa dee xaqii qisaasta yeelanaya markaa cidda wax dalbanaysaa iyagii bay noqonayaan aabba loo dili maayo hooyo noo dila haday yiraahdaan hadduu adiga ku dil lahaaba maanaan dileene codsiyaagana ku dili maynaa la leeyahay adigaba hadduu ku dili lahaa lama dileen marka maantana codsiyaaga lagu dili maaye mar haddaad dhaxalkii qofkan intay adigu leedahay qisaastii way dhacdayba oo isaga hadduu dileen la dili maayo hadduu isagu xaqii qisaasta yeeshana la dili maayo لا بفرعه فرعي سلو دلي ماي ولا له إساق درتي يعدسي سنة لقو دلي ماي ولو أضوط صالي يالبو إنك بحين يا عما لايرس نودر ياهو وحيونا هالك لمكا سكوب مركا براجعين إن نصبك وحي لقو سوكي تشيري هاولي مركا بسالو مركا تيا من كوير براجعين ولو تداعيا هذا إصلاح شايكتان أي سكو قبصدان مجهولا الماء نصب كيسا لقرين أنا بلي xukunkiisu hore inagu soo maray sida loo kala saarayo waqatalahu ahaduhuma labadii midkood baaba ilmihii dilay maxay ahaan jirtay tii ama waxa weeye bayina ayaa la raadinayay hadii bayina la waayo waxa weeye hadduu ilmaha ninkani qaangaar yahay kii uu yiri isaga ayaa idhalay ayaa markaa la raacinayay hadii uu markaa waxa weeyaan taasi ay iman weydo qaa'ifki iyo hidda sooci أين هذا الأبن دقيني فإنه الحق به فلا قوة بيسوي كيري كن دلي حدي استقل لها للشيء لا يستقع بلاي فلا قوة قساسي ما شفته سيدل له هالشيء يا عضلة دوات سبرة جعيني سنة سبرة جعيسو شنق كودري هذا كل شيء ما يوحي له هالشيء يي هرات صارك طب صبرتي مركوا ما حي كي مجهول كأمر كود دلي حدي النصب كي استقع وكسق ما أو استقع نصب كي وكسق ما تاني لين كيسي دلي ونقولنا يايو لو دلي ماي وايه مسألة كلا يدنا الله يرس ويدنا دحالك iyo hawlo fara badan ku jiraan walaw qatala haduu dilo ahad shaqiiqayn laba isku hooyo iyo isku aaba ah ayaa midkood wuxuu dilay haa'izayni buu labadaas dhaxalka labadoodun baaba leh cid kale dhaxalka la himo jirtaba waa labadoodan al aba midkood ba marka aabihi dilay wal aakharu ki kalena al umma hooyadii buu dilay معا هل مربي اسلا دلي markuu kani aabaha dilay uu kana hooyada dilay
اسكو مر بيدلي طبعا مسألة إن الأعضاء وبعيد لكن هذا واحد الدنيا إن أحكامتي يوحلو هذا بابتي أتصور مرتي أتصور حاضر الصف أود مركها مسألة دي فرتها لقاء دونيات وحيري جوابتي حق الضنباء إياي إيمانا يساي وكذلك مرتبا بويري حديك على الضنبين يودي لأنه والله مدعون ولا زوجية وأبها إيهو يدو آني إسقابينه فلكل قود مسألة دامك هذا مكا قبصاته لابد بدو لبقى قود بوياراني وإننا نري أو له مركن تعريفين واحد نري قصاصتي وحويان ورثتي با حق ياراني أنا يراهدان هنا لو قصاص haddii hadaba ay caruurtii ninka la qisaasay ay noqoto cidda dalabkiiri lama qisaasay waxa ka sii awleysan haddii cidda codsigiiri ay noqotoba isla kii la qisaasi lahaa hadduu isagu dhaxalkii yeesho de isagu isqisaasi maaye qisaastii meesha way ka baxaysaa haddaba labadan qof midna abihi buu dilay midna hooyadii buu dilay حفراتك كسو مرت لا ميراث لقاتل قاتلku dhaxal male marka kan aabaha dilay aabaha dhaxalkiisa waxba ku yeelan maayo ka kale ayaa de yeelanaya xaqul qisaaski kan hooyada dilayna hooyada dhaxalkeedii waxba kuma leh marka iyadana qisaasteedii ayaa yeelanaya ka kale de marka fali kullin qawadu mid waliba uu aqoonaya la idilay ninka hooyadii dilay kan uu ka aabahay dilay la dilo waa caadi marka wax marka maanta manciya oo meesha ka saaran qisaasti ma jirto laakiin shardi buu dhigayo taasoo markay isku mar dilaan buu yiri haday kala dambeeyaan oo midi aabaha dilo midna hooyada dilo ay kala dambeeyeen waxay sidan oo kala noqon hadii aanay labadan ruux isqabin hooyadii aabuhu hadii aanay isqabin sano kalun bay noqon laakiin haday isqabaan de koodii dambeeyay baa kii hore dhaxalkiisii soo galaya Sooma oo dhaxalkii baa markaa halkaas wax kala soo noqonay laakiin markaana isqabin dhaxalkii waa labadoodan uu ku urursan yahay labadan qaatil marka aabihiina qaatilkiisa maayka kalun baa dhaxlay hooyadiina qaatilkeeda maayka kalun baa dhaxlay marka mid walba kii kala deeynu ka goosto xaq buu u yeelanay sidee hadaba loo kala qadim di labadii baa qawad iyo qisaas lagu yeeshay waqadima waxa la hormarin fi ma'iyati markay isku mar dileen biqur'ati walo qoritulo kii qorigiisu soo baxo yaa la horreysay وغيرها معيده غيرkeedo markii ay kala dambeeyeen ay zawjiyadu jirinna markaana waxa la horreysay bisabq say kala horreeyeen kii hor dilay yaa la hor dilay fa in iqtasa ahaduhuma hadii labadii mid uu kii kala dilo walaw mubaadiran mid markaa u degdegay ba ha noqdo oo hore u goostay qurcadiiba uma soo bixin ama isagaaba horreeyo in isaga la horreysiyay kii kala dilay فلوارث الآخر قتله كان للدلي dadkiisii dhaxlayay iyaguna ka kale inay markaa dishaan oo ay u dishaan waalidkii hore uu dilay ilaa ka damba qisaas buu ku lahaayo isaga loo qisaasi maayo laakiin waalidkii hore uu dilay kan la dilay dadkii dhaxlayay ayuu xaqi u sii wareegaya iyaga markaa oranaya waalidkayagii uu dilay hadaba isagana ana looga gooyay markaas looga gooyay فلوارث الآخر قتل أو زوجية هذه أي زوجية جرت أباها يهويد ويس قبي يتبع أبيه الدلي كي كلا هويد الدلي محل كي بالدنيا يتكسر صار تقاب قصاص ونقني صادق قصاص صار يسار واحد نقني صار كان أبيه دلي مركهره ورت يسوي أباه محل كيسي وحبكوا يالن مايو قصاص دينا والقولي حق القصاص كنا يا يالن هويدي يو ولالك hooyadii iyo walaalkii ba xaq qisaaska yeelanay hana loo diladay ilaadan weynad intii aan la dilin ba hadana kan kii kale uu hooyadii dilay waxa hadana isweydiinaysaa hooyada dhaxalkeedii yaa yeelanay kan hore aabaha dilay yaa yeelanay ee qisaasta u taalay kan iyadii dilayna iyada dhaxalkeedii waxba kuma leh
hooyada maxaa laga dhaxlayaa baad isweydiinaysa waxa laga dhaxlayaa wixii ay adduun ka tagtay iyo qisaastii aabaha sawma ilaa aabaha qisaastiisina qayb ay ku lahayd dib u dhaxalkii kii aabaha dilay buu dib ugu soo noqday dilkii aabuhu de isaga isa saamaxay isagii markaa halkaa uu isa saamaxay ninkii hooyada dilay isagu cid saamaxda ma haysto wuxuu ku yiri falil awwali kii hore qisaas leh oo yaani qisaas goosanaya kan dambana waa la qisaasaya kii hore qisaas way ka dhacaysaa isagu xaqul qisaas buu yeelanay oo hooyadan dambe dib laga dilay iyo dhaxalkeedii yeeshay waxyaaluhu ka dhaxlayana qisaastii aabaha kamida deetana uu iska rid halkaasna markaa masaa'il faraa'idkii iyo hawlaha tacalluqda iyaad ku buraajacaysay halka markaa masaa'il shirkadeed buu geli doonaa iyo lafteeduna u baahan in aad loo yar fahmo halkaas aynu ku daynayna wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina muhammad